kulanti wacan oo wanaagsan saaxiibayaal meel walba oo dunida ka joogtaan kusoo dhawaada barnaamijka hara oo aan ku eegi doono muhiimadda uu leeyahay marinkan Hormuz ee ay Iiraan ku dhawaaqday inay xireyso. Xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Marco Rubio ayaa ugu baaqay Shiinaha inay ka hortagto in Iiraan ay xirto marin biyoodka Hormuz oo ka mid ah marinada ugu muhiimsan ee maraakiibta. Hadalkiisa ayaa yimid kadib markii TV-ga qaranka Iiraan ee Press TV uu sheegay in baarlamaanku ay ansixiyeen qorshe lagu xirayo marin biyoodka, balse wuxuu intaa ku daray in go'aankan ugu dambeeya uu leeyahay golaha sare ee amniga qaranka. Marin biyoodkan Hormuz oo ah marin biyood dhuuban oo isku xira gacanka Faris iyo badweynta Hindiya waa mid ka mid ah surimada ugu muhiimsan dunida, maadaama uu maro 5 meel shidaalka adduunka laga isticmaalo iyo 4 meelood meel gaaska dabiiciga ah ee dunida laga isticmaalo. Qaraarkan ka soo baxay baarlamaanka Iiraan haddii uu hirgalo saameyn daran ayay ku yeelanaysaa sicirka shidaalka ee suuqyada adduunka oo si weyn ugu tiirsan saliidda ceyriinka ah iyo gaaska dabiiciga ah ee ka gudba marin biyoodkan. Go'aankan baarlamaanka Iiraan ee fulintiisu ku xiran tahay golaha sare ee ammaanka qaranka Jamhuuriyadda Islaamiga ee Iiraan, kaas oo uu guddoomiye ka yahay hogaamiyaha ugu sarreeya waddankaasi Ayatollah Ali Khamenei, ayaa wuxuu u muuqdaa mid looga jawaabayo tallaabooyin madaxweyne Donald Trump uu ku beegsaday xarumaha lagu naaxiyo barnaamijka nukliyeerka Iiraan. Marinkan Hormuz oo balliciisa meesha ugu dhuuban ay dhan tahay 40 kiiloomitir gees ka gees, waa wadada qura ee dunida ku xirta shidaalka ka yimaada dalalka kulaala gacanka Persia. Arrintan la xiriirta xiritaankiisa waxaa durbadiiba laga dareemay suuqyada dunida oo walaac uu soo food saaray. Haddaba ahamiyadda marin biyoodkan haddii aan eegno, Hormuz wuxuu ka mid yahay 5 marin oo baddu ku siriqsan tahay, kuwaas oo kala ah Hormuz, Suez, Babul Mandab, Malaika iyo kanaalka Panama. Marka 5taas marin la barbar dhigo, Hormuz waxa uu noqonayaa kan ugu saxmadda badan, waxaana maalintii mara 17 bilyan oo barmiil oo shidaal ah. Shidaalkaasina wuxuu ka kala yimaadaa dalalka kala ah Iiraan, Ciraaq, Kuwait, Bahrain, Qatar iyo qayb ahaan Sacuudi Carabiya iyo Imaaraadka Carabta. Tusaale ahaan, Sacuudiga oo maalintii dhoofiya 10 milyan oo barmiil maalintii, 7 milyan oo ka mid ah wuxuu ka dhoofiyaa dhinaca Hormuz. Waxaana la oran karaa Hormuz waa halbowlaha shidaalka dunida. Dowladda Iiraan oo ka falcelisay weerarka cirka ah ee lagu soo qaaday dalkeeda ayaa Mareykanka ku eedeysay inuu diilin cas oo halis ah ka soo tallaabay, waxayna wacd ku martay inay jawaab kulul ka bixin doonto, waxayna ku tilmaamtay weerar bareer ah oo lagu soo qaaday sugnaanteeda dhuleed iyo haybadeeda gobonimo. Wasiirka arrimaha dibadda ee Iiraan, ninka lagu magacaabo Abbas, oo ka hadlayay shir ay magaalada Istanbul ku yeesheen wasiirada arrimaha dibadda ee ururka iskaashiga Islaamka, kaas oo looga arrinsanayay xaaladda Bariga Dhexe, ayaa madaxweyne Trump ku tilmaamay ama ku eedeeyay inuu ku dhacay dabin halis ah kadib markii uu fuliyay rabitaanka Israel. Hase yeeshee, Donald Trump oo qiil u dayay weerarka uu ku qaaday Iiraan ayaa tallaabadaasi ku sheegay mid looga gaashaamanayay in Iiraan yeelato hubka halista ah. Tallaabada baarlamaanka Iiraan uu ku oggolaaday in la xiro marinka Hormuz ayaa loo arkaa fariin toos ah oo ku socota Mareykanka iyo xulafadiisa reer galbeedka, kuwaas oo loogu sheegay in haddii ay isku soo bahaystaan weerar Iiraan ka dhan ah, ay dhaqaalaha dalalkoodu dhulka la geli doonto. Waana sababta keentay in xogayaha arrimaha dibadda Mareykanka uu si degdeg ah uga falceliyo hanjabaadda Iiraan. Tallaabadaasi oo haddii lagu dhaqaaqo uu ku tilmaamay mid xaaladda cakiran uga sii daraysa. Xogayaha dibadda ee Mareykanka ayaa intaasi ku daray in marinka Hormuz oo la xiro aysan cidna dan ugu jirin, isla markaana ay taasi wiiqayso dhaqaalaha Iiraan iyo kan dunida intaba, wuxuuna baaqiyo u diray dalal uu ka xusay Shiinaha oo uu ku booriyay in Iiraan ay ka waaniyaan wax kasta oo carqaladaynaya habsami u socodka badeecadaha ku goosha marinkan Hormuz. Waxaan ku boorinaynaa, ayuu yidhi, dowladda Shiinaha inay arrintan kala hadasho Iiraan, sababtoo ah si weyn ayay ugu tiirsan yihiin saliidda marta marinkan Hormuz. Waayo haddii ay sidaas sameeyaan, taasi waxay ka dhigan tahay khalad kale oo halistiisa leh.
kale waa ismiidaamin dhaqaale oo iyaga toos u saameynaya ayuu yidhi. Waxaanan ka fikiraynaa sidii aan ula tacaali lahayn, laakiin waxaa loo baahan yahay in dalal kale ay sidoo kale arrintan il gaar ah ku eegaan, waayo haddii tani ay dhacdo waxay saameynta ugu daran ku yeelanaysaa dalalkaas kale oo annaga nooga baahi badan, ayuu hadalkiisa sii raaciyay. Si kastaba ha ahaatee, lama hubo in Iiraan ay fulinayso qaraarkan baarlamaanka iyo in kale, waxaase hubaati ah inay saameyn ku leedahay xasiloonida sicirka shidaalka dunida, isla markaana tallaabadani ay Iiraan uga dhigan tahay qaniya kaa fujisa. Inta ayaan kusoo afmeeraynaa saaxiibayaal barnaamijkii gaarka ahaa ee aan ku eegeynay marinkan Hormuz oo duqeymihii Maraykanku uu ka geystay Iiraan kadib ay Iiraan ku dhawaaqday inay marinkaas gebi ahaanba xirayso. Intaan dib ugu kulmi doono barnaamijkan kiisa xiga waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.